hay nabada kuna helay dhamaysno mana jira wax iga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Sila 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaaban oo ku saabsan socdaalka madaxweyne Muuse ee Mareykanka iyo balcidda ku soo dhaweynaysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland oo waddo cusub qaaday iyo Mareykanka oo xilligan doonaya inuu salka dhigto berbera iyo bal waxyaalaha u sahli kara dadka casimay iyo organizationka casimay waayo siyaasadda arrimaha dibadda wax ma ka qaban karaan wax ma ka tari karaan mowqifkooda siyaasadeed waa noocee Mareykanka xilligan maxaa soo kiciyay arrimahaas oo dhan ba waxaan ku eegaynaa barnaamijkeennan waxaan la wada soconaa wafdi Congress-ka Mareykanka iyo shaqaalihiisa ka tirsan inay yimaadeen Somaliland oo ay la kulmeen xisbiyada iyo xukuumaddaba iyagoo si ballaaran u gaalabixiyay socdaallo jamhuuriyadda Somaliland ilaa berbera tegay meelo kalena la sheegay inay tageen laakiin xilligan ujeedada ugu weyn ee Mareykanku ka leeyahay geeska Afrika ayaa isbedeshay waana sababta keentay Somaliland xilligan inuu beejaj cusub u furo oo siyaasadeed ururkan casimay think tank ama ha loogu yeedho ama heritage ha loogu yeedho waa khubaro siyaasadaha caalamka qayb ka yeesha waana meel lagu sii shiilo siyaasadda wax lagu dejinayo iyo siyaasadda wax lagu duminayaba waa cid marka horeba sii sahamisa cidda cusub ee Mareykanku uu saaxiib la noqon karo iyo cidda uu markaa la coloobi karo waa meel lagu shiilo oo si fiican lagaga baaraandigo siyaasadda uu Mareykanku qaadi karo talooyinkoodana waa la qaataa waxaynu ognahay in Mareykanku uu in badan ku daalay siyaasadda geeska Afrika Soomaaliyana uu in badan taageersanaa wax kastana ku bixiyay laakiin xilligan dantiisa marinka badda cas ayaa ka duwan taas waana muhiimadda ugu weyn ee wafdiga Somaliland ka socday madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayo ay Mareykanka u tagayso waa laga yaabaa dadka qaar inay si kala u dhigaan waa laga yaabaa dadka qaar inay si kala u arkaan laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye Mareykanku wuxuu eegaa laba siyaasadood oo ah siyaasadda anigu ma maamuli karaa siyaasaddani aniga ma i baahan tahay waana labada arrimood ee uu doonayo xilligan inuu geeska Afrika ka fushado maadaama saldhiggii Djibouti ee Mareykanka ku yaalay xilligan lagu martiyay oo wadamo badan oo adduunka ay ka mid ay ku martiyeen China uu qayb ka yahay Mareykanku wuxuu doonayaa meel ka madax bannaan oo China aanu gacanta weli la soo gelin waana meesha ka badqabta gacanta China haddaba su'aashu waxay tahay Somaliland ma ka faa'iideysan doontaa laftigeedu fursadan u soo gashay Somaliland xilligan waxay hogaaminaysaa ay hoggaanka u haysaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ee geeska Afrika ama Afrika oo dhan taasina waa arrin kale oo Somaliland ay dheer tahay Afrika suuragal ma tahay khilaaf siyaasadeed oo Somaliland dhexdeeda ka jira in Mareykanku uu miiska u soo saaro Somaliland xilligan waa maya waayo xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ku murmaya saameyn kuma yeelanayaan siyaasadda uu halkaa kala kulmi doono waayo dimuqraadiyadda oo dhan baaba ah muran Mareykanka laftiisa muranka iyo muran ka duwaniba wuu yaalaa beelaha Somaliland wada diga iyo dadka Somaliland wada yaala muran ma dhex yaala taasina imika ma jirto oo ninka saddexaad ee Somaliland ugu sarreeya wuxuu ka soo jeedaa gobolka Sool madaxweyne ku-xigeenkuna wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal halka madaxweynuhuna uu ka soo jeedo Hargeysa taasi waxay dheeli tiraysaa siyaasaddii markii hore la oran jiray Somaliland looma sinna midda kale Somaliland doorkan waxay kaga duwan tahay siyaasadihii hore Mareykanka ayaa u baahan Somaliland oo uga baahan inuu China garab uga helo waana arrinta hogaaminaysa Mareykanka ma hogaaminayso dareenka Somaliland laakiin waxa hogaaminaya dareenkiisa oo ah halkeebaan badda cas ka diga iyo maxay soo kordhaya haddii siyaasadaha noocan isu bedelaya ay sii xoogeystaan Mareykanka guul bay u tahay waxaan odhan karnaa waxa weyn baahida Mareykan ee geeska Afrika ayaa ka weyn baahida Somaliland ay doonayso waayo 30 sannadood ugu dambeeyayba iyadoo wadadan way sii haysay waana la soo noolayd halkaan waxaan ku soo koobaynaa faaladeenii gaabnayn kaga hadlaynay socdaalka madaxweyne Muuse Biixi ee Mareykanka iyo baahida Mareykanka ee xilligan Somaliland ka jirta